intiina soo dhan waad joogteen gacantaaga labada meeloodba iniga ka marqaatiya ninkii ku guuleysay iniga ka marqaatiya kamaradiinaas mid walba way duubeen waxaad ogeydeen inuu ku guuleystay Cabdiraxmaan Talyanle oo gacantaagii intiina saan nigu dhaariyay Ilaahay baan nigu dhaariyay kamaradiinaas waa wada duubeen marka dib ugu noqoteena guusha waad ogtiin ninka u dhacday gudoomiyaha xaq ah ee ku guuleysana wuxuu Cabdiraxmaan Talyanle gudoomiyaha aan xaq ahayna no hogaamin kari maayo saaka waad arkaysaan in qasab lagu fadhiiso waxa ciidan yimid meesha waad arkaysaan ciidanku de qasab kuma fadhiisin karo qasabna xildhibaanada 28 xildhibaan ugu ma noqon karo gudoomiye baashe waxaan sameynay guddi baan sameynay guddidaa la sameeyay waxa la yiri war khilaaf waligeed buu dhici jiray dhaqan baanu lahayn reer Soomaaliland inaan khilaafka markasta la dhamaysto waliba xagoogay ka timid waan aqbalnay 5 iyo 5 baan ahayn guddidii baan kamid ahaa waxa dhacday inay soo joogsan waayeen nimankii inay hawl kale oo xildhibaan hebel wax kale ku mashquuloon oo xaq u hayn oo aad arkaysid yaani qarankii hay'adii sharciga ahayd xaalkooda halkay marinayaan wax kale ku mashquuleen hadalkii waa soo fadhiisan waayeen waxa soo dhaxgalay Ali Yuusuf oo markii horena gudoomiye ka ahaa markii la qabanayay gudoomiyenimada tartankii waa u yeedhay waa ka baxeen waa diideen shirki waxaan leenahay ciidamadu anagu waan kala baxaynaa isma layna ciidamada waa karaamay leeyihiin ciidamadu waa ciidamada sharaftaan ku leenahay waa ciidamadeeni waa ciidamadii qaranka calaamad iyo ixtiraam bay leeyihiin golaha anagu kulay toona heshiinayna dibna naga dhacmayso golaha nooga soo baxaan ma layna ciidamadu waa hay'ad sharci dejina waa hay'ad soo dooratay wax khilaaf anagu afkan ka hadalnaa isma dilno gacantaasina waan ku kala baxaynaa ciidamada waxaan ka codsanaynaa golaha ayaga dib jirtaa ma jirtay inay naga daayaan inay nin xoog ku fadhiisiyaan ay ka joojiyaan socono ma isqoolaydu baa leeyahay qoor qabasho kuma biya cabto in qasab nin aananu dooran la nagu fadhiisiyo ciidamo halka maanta la soo buuxiyo ciidamo qayshado halku goolihiisa xalin lahaa labiisa dadkiisa xalin lahaa gudoomiye xaq u noqon lahaa siyaabo kale u xalin lahaa xaaladaha inuu ciidan halka ku soo ururiyo adeegsado marna ka socon mayso qooli kuma bilaab waar waxaan leenahay anagu mar walba Soomaaliland hadduu khilaaf dhaco hadii kaleba waxbaa lagu xalin jiray waxbaan dhaqan u hayn qorshaan lahayn aan ku soo caana maalna ilaahayna nagu garbsiiyay waar ha laga daayay ciidamada annaga wada hadlayna annaga heshiinayna ciidamadaasi waxaan leenahay xerada ciidanka nooga soo baxan saaka wuxuu furmi waa golahaas waa ciidamada meesha jooga intaasoo booliska la keenaya waxaan leenahay war xildhibaanadu way niismayeen xaq darro mid ha ku taageerin oo amar khalada ha fulinina leenahay ciidamadu waa daacad waa la soo amray waa la keenay laakiin waxaan leenahay war khalad xaaraana oo amar xaaraana ha qaadanina anagu waan heshiinayna isma laynayno baasko lama siino فارس لما دعينه هذا القرآن توي يجع عن تايدن تاجن هنجا بحام بالله العظاس هل كان بركة إنه تاجن هنا وإنه بالشدة وقوة رمينا برلمان كودي أي سيدا مدحتوية ده أصول دورتين وحى كدحك عي دورش على عظيم بركي ونكي قدوميها أو رزاين جريء دورش دي أنا سجالي يصدق وحى إنه كل دورنا نكا عبد الرحمن محمد تليان الله يلاحظه باشنا وحول استديو صدون سوى حد عين با واحد عضي إن السجال إيه صدون كينا يسجى كرسي لجو ليري كفريسو سيدي إيه صدون كينا ليري إذنكم بي إذن كاهلي دي بانو إجن أيضا عضانا نصوص صار محكمة دانو جيني وين نقول سوء عليس دولة دي باص حكومة دي باص صوغ شيء قصب واحد يكون قوسة حكومة دو إن أي كفريسو باشه dadka waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa meesha ka dhacaya waa waxa xaq iyo baadil waligood heshiin maayaan waa xaq iyo baadil baa ishaya xaqi wuxuu raacay Cabdiraxmaan Talyanle inta yarayna waxay raacday ninka kale ee baasha la yiraahdo waxaan u walaalayaal leenahay markaa gaarsiinaysaan dadka waxna siday tahay u gaarsiiya waxa weeye waxaan saaka lagu dhawaaqay waa kooram baa la furay waa 24 quraan baa la akhriyay inuu furmo ma aha 42 buu ku furmaa tal arinta xunad gafka dambe ka dhacayana waa kaas weeye waa boob iska cad iyo xoog socon mayso xaqa dadku raacaya xaqa loo hiilinaya waana maqlaysaa bulshadiina soo dooratay askarta
sharaf bay mudan yihiinoo amniga ummadday ka hayaan goraa layskuma dilo hadduu ka ingiriiska yahay iyo hadduu mid walba waa laysku qabtaa arrinta gacmo taag baa dhacdhaca hadal kulul baa dhaca askarta waxaannu leenahay iyo ka xukumayaba ee soo diraya distoorku ma jidaynayo inay gudaha soo galaan askartu mar hore waa dhacday raggii la xidhay baan ka mid ahay yaa i xidhay baan waba la garan waaye waa la dafiray waxaan leeyahay aan ku soo gabagabaynayaa aad iyo su'aali kama furra xaqii waa aragtaan sidaa uu yahay baa loo baahinayaa oo dadka loogu sheegaya oo dadka loogu bandhigaya dadkuna maanta waa taageersan yahay arrinta adduunyaduna way nala joogtaa ingiriiska way nala joogaa cid waliba way nala joogtaa waxaan dhacayo waa la og yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta in la doorto cid lama ballansanan saaka waad ogeedo maxkamaddu waxay soo dirtay waraaq baa noo soo dirtay ee gulaha heshiiyo oo ku wada hadlo iyagu shuruucdooda u taalle hoosaalada ka wada hadleen oo way sayaanay heshiisay galeen markaa goli sidaa ku hogaamiyeen heshiiskii markuu socon waayey xaggooda ka socon waayey ayaa haddana qoladii kale baasha watay ay saaka shil yimaadeen ma imanina 13 nin ilaa 20 ayuu baashii shir u qabtay intii kale xildhibaanadii bannaankay joogeen ama bannaankaanu fadhinay dee saasay u dhacday sax Abubakar marka in xildhibaan golahu saaka u ballansanaa golihii ciidan baa ku wareegsan hadda ilaa hadda xildhibaanada khilaafku ka dhaxeeyo iyo waliba xildhibaanadina laba kala jabsan yihiin bulshadu warbayda ka sugaysaa bulshada maxaad fariin u diraysaa horta aan ku celiyay mar kale wax ciidan baarlamaan ballansanaa saaka inuu yimaado ma jirin baasha fariintooda u diray isaga ka ahayn chairman meesha ka ahayn u diray yiri hal yimaado annagu waan nimo waxaan u nimo golaha haddii la wada hadlayo wax lagu wada hadlo lagu heshiiyana hal yimaado hal furo oo taasaan diyaar u ahayn haddii kalena dee golahu golo furmaya ma ahayn waan furmi waayey iminkana wuxuu yidhi arbacada hal yimaado siduu sheegayo annagu se maalin walba waa imanayna haddii alla ka dhigo oo maanta laga bilaabo sababta arbacada loo maray wax dee isagu wuxuu leeyahay qoladii la doonaysay meesha labaad kaali maxamedow ma ka qayb gelaysaan arbacada haddii korab ku buuxsamo maya dibadda ka tagnanaysaan maya sharciba maaha maba ogolin inuu furmo maba ogolanayno